Mahad Cabdi Cismaan oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland ahna darawalka taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland oo maalnimadii Isniinta magaalada Hargeysa ugu gacan qaaday haweeney taasoo muuqaalka lagu sheegay inay gabadhu ahayd ardayad saacadu kadib waxa Mahad laga ruqsiyay ciidamada booliska Soomaaliland hadaba Mahad yaaniga waxana dhex maray dood ku saabsan sababta keentay inuu haweeneyda u gacan qaado maadaama uu ahayd xaaskiisa tan waxay ku dhacday horta gabadhan waxay ahayd xaaskayga in muddabayga maqnay 2019 bishii afraad inta ciyaalkii daadisay oo maxaan ku raacay ciyaalkii hooyaday ku daadisay ayay maxaan ku dhahay saayga maqnay gurigoodii meeting gabadhu ama waxay tagtaa gurigooda tagtaa ama kay reerka ku hayd joogtaa gurigoodiina may tagin kay reerka ku haydna ma joogin magaaladay gashay maqaaxiyahaasi ka shaqeysanaysay sanadka ay maqnayd ba dhuumaaliisay bay ku jirtay gurigoodiina may tagin keediina ma joogin ubadkeediina way daadisay ma garatay adigu maxaan ku dhahay dabeetana maalintii dhaweyd ee Isniintii waxay dhuumaalaysataba anigoo wadada maraya ayaan bidhaanteeda arkay dabeetana dhaafitaankii aan dhaafay anigoo gaariga wata ayaan soo kala jeestay aan soo kala jeestay show iyaduna diyaar bay iska haydba marka horeba dhinaceeda marka marayay ay dhagax qaaday muraayada dambe bashka gasay waan soo degay waxaan ku dhahay gacanta dhabban siiyay gaariga iyadoo muraayadii jimeysa baan ka qabtay dhurbaaxan ku dhuftay dabeetana ma garatay dadweynuhu dabeetana maxaan ku dhahay adigu maxaan ku dhahay social media maxaan ku dhahay qadad baa kamarada hoos u duubay markiiba midiyaha la soo dhigay arintii baa la buunbuuniyay waxaan ku sheegayaa Cabdiraxmaan adigu meedo gashay gabadhaadu ilaa maxaan ku dhahay gabadhaadii oo qabtaa intay magaalada gasho ubadkeedina daadiso ay maqaaxi ka shaqeysan miyaad dareenkaagu ku siinay adiga waa maayde marka anigu wuxuu dhiiga dhaqay gabadhaydii oo ubadkeedii daadisay almaano hadii ay joog lahayd meel aan leeyahay garanayn maal waxba ma ahaatay laakiin waxay joogtay bulshadii aan ku dhex noolaa dadkii iyada wada garanayay dadkii aniga ay garanayay bay ku taanay gabadhaydii intii ubadkeedina daadisay magaalada suuqa joogto ka shaqeynaysa dhanka kale Mahad waxaan su'aal ka weydiiyay sababta ku kaliftay inuu gacan qaado haweeneyda oo uu sheegay inay ahayd xaaskiisa waxa uu ku jawaabay marka aragtidan ay aragtay aniga ayay maxaan ku dhahay si maxaan ku dhahay dareenkii ay xaalad kale u abuurto oo maxaan ku dhahay association-ka ay u dhigtay saasay ku dhacday arintaas manaan dili jirin manaan xaay jirin manaan aflagaaday jirin cabsi ay iga qabto ma ahayn taas lama oran karo waa cabsi ay ka qabto laakiin maxaan ku dhahay dhaafitaankii aan soo kala jeestay ay iyaduna dhagax qaadatay saasi gaariga ku jabisay gaarigii ay jabisayna waan soo degay qabashadii aan qabanayay way ila sifre ay bay bilowday deedna taadarteed barbaaxada keentay askaaga hadii aad hayn kar weyday oo ka cararayso hal kale miyaad u weeday mar hadii guriga aad ku hayn kar weyday oo aad ku maareysaa arinta reerkoodina ma soo celin waayo gabadha adigu miyaad oga shay walaasha inta ubadkeeda daadso maxaan ku dhahay maqaaxi suuqa ka shaqeyso soo ma socodsan dhaq mar dhafatay ma tiish adigu hadaba dadku waad kale qof walba dareenka adigu qabto ayuu maxaan ku dhahay shakhsiga kale qaba taliyaha horta maxaan ku dhahay horta taliyaha inankiisi baan anigu ma garatay sagaal sanadood ayaan taliyada shaqeyn afaan maanta ku amaana mooyaan afaan maxaan ku dhahay taliyaha ku afrigaadiya ama afaan wax kaga sheega iguma yaalo 18 caruur dhalo 19 baan ku ahaa marka taas ima banaana saasi taas way garnaa marka Cabdiraxmaan Erdogan Horyal TV Hargeysa